السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتو عن داوديال ملك السؤال جوكتان idilkiin ba ku soo dhawaada barnaamijkeeni wararka iyo warbixinada dunida oo aad maalin kasta ka daawataan shabakada wararka ee warqa tube. waa maalmo Arbacada taariikhduna ay ku beegan tahay 16 bisha Janaayo sanada 2018 qodobada dunida ugu waaweyn ee aad barnaamijkeena ku daawan doontaan waxa ka mid noqon doona wararkii ugu dambeeyay ee wararka lagu qaaday hotelka raaxada ee ku yaala magaalada Nairobi ee xarunta wadanka Kenya. waxaan ku soo qaadi doonaa barnaamijkeena qasaaraha ilaa iyo hadda la og yahay ee wararkaasi ka dhashay inta uu gaarayo. waxaan sidoo kale ku soo qaadi doonaa ma lagu guuleystay ilaa iyo hadda in la soo afjaro WD wararka ku qaaday gudaha hotelka oo saakadii hore la soo warinayay in ay wali hotelka gudahooda ku jiraan ajaanib lagu dilay. wararka lagu qaaday hotelka Nairobi iyo wararkii ugu dambeeyay ee ku saabsan wararkaasi ayaan barnaamijkan ku gorfayn doonaa. baarlamaanka UK oo diiday inay meel mariyaan heshiiska Theresa May ee ay boqortooyada Ingiriiska uga baxayso ururka midowga Yurub. wasiir ka tirsan maamulka Israa'iil oo sheegay in Yahuudu ay diyaar u yihiin inay qabsadaan marinka Gaza ee dhulka reer Falastiin, iyo Trump oo doonaya in Mareykanku uu ka baxo ururka gaashaanbuurta NATO. qodobadaas iyo kuwa kale ayaan barnaamijkan ku soo qaadan doonaa rubisa soo aadan. aan ku bilaawno barnaamijkeena. shalayto galinkii dambe ayaa waxaa la sheegay in dablay hubeysan ay warar ku qaadeen hotel kuwa raaxada ah oo ku yaala galbeedka magaalada Nairobi ee xarunta wadanka Kenya. hotelka waxaa la sheegay inuu yahay mid kamid ah hoteelada 5 star-ka ah oo ay degan yihiin dadka ajaanibta ah, isla markaana oo ay ka dhow yihiin dhowr safaaradood oo kuwa galbeedka ah. hotelka waxaa la sheegay inuu ka kooban yahay dhismayaal fara badan oo isugu jira ganacsi, goobo lagu raaxaysto, goobaha dabaasha iyo qaybo la jiifto. haddaba waxaa wararkaasi mas'uuliyadeeda sheegatay xarakada Al-Shabaab ee fadhigeedu yahay Soomaaliya, sidoo kale warar ka geysata gudaha wadanka Kenya. wararkii ugu dambeeyay ee wararkaasi waxaa si aad ah ula socday Xasan Kaafi Xuseen Axmed oo ah suxufi aad ula socda arrimaha wadanka Kenya iyo arrimaha caalamka oo hadda studio ay gula sugan. xasan ku soo dhawow barnaamijkeena wararka iyo warbixinada ugu waaweyn dunida ee shabakada wararka ee warqa tube. bal gooraan waxaad nooga warbixisaa ilaa iyo hadda wararka is soo taraya ee ka soo baxaya wararka ragga hubeysan ay ka geysteen hotelka ku yaala magaalada Nairobi ee xarunta wadanka Kenya. وماشتهي حسن ويلي وركا كلمان يا مقالة نيروبي حرونتا دالكا سي كينيا يا وحا اي شيغيان ان ويركي كوحاها هوبيسان او كترسان الشباب يكو قادين ان هوتيلكا الراحة ay ku yaala Westland xaafada loo yaqaan magaalada Nairobi in markaasi haatan uu marayo xilli gabagaba ah. halkaasna ay ciidamada ammaanka ee dalka Kenya ay ku dhow yihiin in ay gabi ahaanba meesha ka saaraan dagaalamayaashii gudaha u galay hotelka shalay galinkii dambe, kuwaasi oo qaraxyo iyo sidoo kale rasaas toos ah halkaasi ka adeegsanayay ilaa iyo saacadihii la soo dhaafay. waxaa la sheegay ama la shaaciyay ilaa iyo haatan qasaare gaaray ilaa iyo 15 qof in ay weerarkaasi ku dhinteen tan iyo markii uu bilowday shalay galinkii dambe. 15 qof waxaa la sheegay inay uu ka mid yahay nin u dhashay dalka Ingiriiska iyo sidoo kale haweeney ka soo jeeda dalka Mareykanka. wasaaradda arrimaha gudaha waa wasaaradda arrimaha dibadda dalkaasi Mareykankana sidoo kale waxa ay sheegtay in muwaadin u dhashay horay u shaacisay inuu ku dhintay weerarkaasi. kaamirooyinka CCTV loo yaqaano ayaa waxa ay qabanayaan dhismaha haatan halkaas oo ciidamo ay dhaqdhaqaaqyo ka sameynayaan, iyadoona sidoo kale howlgalku haatan u muuqdo mid soo gabagaboobay, iyadoona wariyaasha loo ogolaaday sida warbaahinta qaar ay sheegayaan in markaasi ay gudaha u galaan si ay halkaasi macluumaad dheeraad ah kaga soo gudbiyaan. taliyaha booliiska ee dalkaasi Kenya Joseph Bonnet oo hadlay ayaa waxa uu sheegay in haatan ciidamada ammaanku ay meel fiican u marayso marka ay timaado inay soo gabagabeeyaan oo soo afjaraan weerarkani. waxa la arkayaa meydadka halkaas laga soo daabulayo oo la geynayo isbitaalada. meydadka qaarkoodna waxa la sheegay in la aqoonsan waayay waji ahaan, balse warqado aqoonsiyo ah la eegay. 12 kamid ah meydadkaasi waxa la sheegay inay yihiin u dhasheen dalka
dalka Kenya labana Mareykanka iyo sidoo kale Ingiriiska ay kasoo kala jeedaan halka laba qof oo kale la sheegay in la garan waayay oo wali warqadahoodii ay baaritaano ku hayaan waaxda caafimaadka ee dalkaasi Kenya saacadii la soo dhaafay waxa halkaasi ka kacay uuro iyo sidoo kale qiiq meesha laga arkayay oo soo baahinayeen telefishinada kala duwan iyadoona uradaasi aan la xaqiijin karin inay yihiin kuwa ay ama ay sababeen ciidamada ammaanka oo gudaha ay rasaasiyay iyo inay yihiin kooxaha wali halkaasi ku sugan walow uusan jirin war rasmi ah dowladda Kenya ka soo baxay oo ku aadan in gabi ahaanba weerarkaasi la soo afjaray haddana waxa ay u muuqataa in weerarku uu marayo xilli gabaabsiya maadaama waqti aad u badan qaatay xasan wali waa gartay xasan sida aynu markaasi arki karno ama dadka daawanaya ay arkayaan muuqaalada hotelka laga soo qaaday dad badan oo Kenyaana oo la badbaadinayo ciidamada oo kuwa gaarka u tababaran waliba oo galaya goobta iyadoo ay jirto sidoo kale in xalayto ay ciidamada ammaanka iyo wasaaradda amniga ee wadanka Kenya ay sheegtay in howlgalka la soo gabagabeeyay haddana saaka rasaas ayaa meesha laga maqlay marka arrimahaas oo dhan ka soo tagno ilaa ay hadda ciidamada ammaanka ee wadanka Kenya iyo mas'uuliyiinta amniga ma sheegeen tirada dadka weerarkan fulinaya ama ragga weerarkan fulinaya ee ka tirsan xarakada al-shabaab xasan waa mahadsan tahay warka markii uu soo shacbaxay ba waxa la sheegay in ragga gaaray ilaa iyo 4 nin oo ay qabteen kaamirooyinka CCTV ay gudaha u galeen hotelka dad goobjoogyaal ah oo warbaahinta la hadlana waxay sheegeen in raggaasi ay ahaayeen ilaa iyo 4 raga oo gudaha markaasi ku jiray halkaasna ilaa iyo xalay ka dagaalamayay dowladda Kenya sidoo kale waxay soo badbaadisay dad aad u fara badan oo 200 oo qof ku dhow markaasi kuwaas oo ay sheegeen ilaa iyo xalay inay halkaas ka soo daabulayeen kuwaas oo qaarkood ay qabaan dhaawacyo ka soo gaaray iska horimaadka halkaasi ka soconaya sidoo kale xasan wali waa wasiirka arrimaha gudaha ee dalkaasi Kenya ayaa waxa uu sheegay xilli horeba xalayto in weerarka oo markaasi marayo meel gabaabsi ah ma uusan sheegin in weerarka guud ahaanba ay soo afjareen balse wuxuu sheegay in ammaanka ay gacanta ay ku hayaan waxa soo ifbaxday in weerarkii oo halkaasi ka sii socday oo saakaba halkii qaraxyadii iyo sidoo kale rasaasayntii laga arkay waxa ciidamada ammaanku ay sheegeen in muwaadiniinta u dhashay dalka Kenya iyo kuwa shisheeye oo halkaasi ku suganba ay si weyn ammaankooda u sugayaan dowladda Mareykanku waxay ugu baaqday dowladda Kenya maadaama safaaradeedu la sheegay in halkaasi ka agdhowdahay inay muwaadiniinta ka soo jeeda dalka Mareykanka ammaankooda la ilaaliyo oo si weyn looga taxadiro asaate waxa halkaasi kaga geeriyay dowladda Mareykanka hal qof xasan waa gartay weerarka qaabka u dhacay ilaa iyo hadda ma jirta madaxda caalamka haddii ahaan lahayn kuwa ururada caalamiga ah iyo madaxda dowladaha weerarkan siday uga hadleen maxay warar ay ka soo saareen tan iyo markuu soo baxay weerarkan lagu qaaday hotelkan raaxada ee ku yaala Westland galbeedka magaalada Nairobi xarunta dalkaasi Kenya xasan wali waxa soo taraya cambaarin xooggan oo ka imaanaysa madaxda caalamka hadii aan leed kuwa reer galbeedka iyo sidoo kale bariga dhexe hay'adaha caalamiga hadii aan lahayd weerarka waxa dadka cambaareeyay kamida madaxweynaha dalka Falastiin Maxamuud Cabbaas oo sheegay in weerarkaas uu yahay mid aad uga xun yahay sidoo kale weerarka madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa sidoo kale cambaareeyay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sidoo kale markaasi cambaareysay sidoo kale waxa jira madax kale oo markaasi caalamka ah oo cambaareeyay dowladda Soomaaliya sidoo kale war ka soo baxay waxa ay weerarkaasi sidoo kale ku cambaareysay qaramada midoobay sidoo kale xogayaha guud markaasi Antonio Guterres ayaa cambaareyn xoogan markaasi dusha kaga tuuray weerarkaasi waxa uu sheegay inuu ahay mid bahalnimo oo lagu qaaday dalka Kenya waa gartay xasan dhinacyadaas dhan waa garan xarakada al-shabaab ayaa mas'uuliyadda sheegatay al-shabaab iyagu ma soo saareen war faahfaahsan oo ku aadan bartilmaameedkooda waxa uu ahaa xubna ay ku dileen oo darajooyin hayo oo sheeganayaan iyagu war ma soo saareen oo hadlayaan qaraxan
xasan weli markii weerarkan uu bilowdayba saddexdii galabnimo ee shalay oo talaado ahayd al-shabaab markiiba waxay la hadleen warbaahinta caalamka qeybaheeda kala duwan waxaana sheegeen in weerarkaas ayaga ay fuliyeen sidoo kale goor dambe oo xalay ahayd war ay soo saareen waxay ku sheegeen in dad ku dileen gaaraya ilaa iyo 47 qof oo markaasi ku sugnaa goobta ay weerareen goobtan waxa ay ku sheegeen inay ahayd goob muhiim ah markaasi oo dagaalyahana ka tirsan gudaha ay u galeen isla markaana halkaasi ay weerar ka geysteen hase haatee al-shabaab ay warkooda kuma aysan cadaynin bartilmaameed gaara ay lahaayeen mana aha weerarkii ugu horreeyey waa kii saddexaad oo markaasi al-shabaab ay ku qaadaan gudaha magaalada Nairobi waxaana ugu horreeyey kii Westgate Mall iyo sidoo kale jaamacadda Garissa kii ay ku qaadeen sidoo kalena kan wuxuu noqonayaa kii saddexaad wuxuuna ku soo aadayaa sidoo kale xilli shalayta loo xusayay weerarkii dagaalyahana ka tirsan al-shabaab ee deegaanka ceelcadda gobolka Gado ku qaadeen waa sanadkii 2013 halkaasoo la sheegay inay ku dileen askar badan oo ka tirsan ciidamada Kenya sidoo kale waxaa ka sii horeeyay in al-shabaab ay hore u sheegeen inaysan hakinaynin weerarada ay ku qaadayaan gudaha dalka Kenya iyo sidoo kale saldhigyada ay Soomaaliya ku leeyihiin ciidamadoodu